الله ما هاد سكاله وما أنت نو صورة جليي قبسو مدة مناسبة عن أود بالدجينه حسك سندقولي لحدني لبعض كسو وركتي أساس كي عيدا كحوجة ضلك الصوماليات وحن ربا إلى أن بحد عليه تليه أدواء runtii iyo saraakiisha sare oo ka qayb qaadatay abaabulka xafladan quruxda badan iyo sida wanaagsan ay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ay dhismaheeda iyo quruxdeeda u soo celiyeen waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo ciidamada qalabka sida guud ahaan iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qoysaskooda waxaan leeyahay hambalyo waxaan ilaahay ka baryanaa sanadkiis inuu nagu gaarsiiyo caafimaad iyo cimri iyo horumar taliyooduwa uu ka hadlay taariikhda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhismihiisa iyo marxaladii soo maray anigu se wax yar ayaan rabaa inaan ka taabto taariikhda aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ahayd 12 April 1960 uu hogaaminayay aasaasena uu ahaa Allah u naxariistee General Daawud Cabdulle Xirsi oo dhidibada u dhigay aasaaska u dhigay ciidanka xoogga Soomaaliyeed oo muddo 30 sano ah runtii gaaray meel aad iyo aad u sarreysa oo laga ixtiraamo caalamka guud ahaan iyo Afrika gaar ahaan wuxuu ku dhisay ciidankaasi oo cutubiyadii ugu horeeyay ay ahaayeen 2 urur macnaheedu waxay ahayd 8 hormood ayuu ku bilaabay oo aanan khibrad dheer u lahayn ciidan difaac oo badankoodii ka yimid booliis tababar dheeraad aan haysan war college aan ka soo bixin waxa intaas dheer qalab maysan haysan dhaqaalaha iska daa laakiin wax intaas ka wanaagsan oo ka sareeya oo ka muhiimsan ay haystay oo ahayd caqiido ama mabda ama core value wax la yiraahdo principle oo la yiraahdo wadaniyad marka xamaasadda wadaniyadu ay sareyso qofku waa dhameystiran yahay waxa uu harsan inuu dhaqaaqo oo kaliya markaasna dhismihiisa ee ahayd waqtigaas aan sheegay 2 bilood iyo 3 bilood kadib waxa noo curtay dawladdii ugu horeysay oo dawladnimadii kala soo wareegtay isticmaalkii Ingiriiskii iyo Talyaaniga oo iyadana aasaas u ah ay wahayd wadaniyada aasaaskaas wadaniyadana waxay ka dhaxleen 17 sano oo gobonamadoon ahaa oo ururkii SYL ay ummadda Soomaaliyeed ay bareen wax la yiraahdo wadaniyad ay bareen in qabiil iyo qabyaalada laga tago energygaas ama xamaasadaas iyo noogu dhismatay dawladdii ciidankii noogu dhismay waxay keentay marka in la samaysto mission wax la yiraahdo visionkii waa wadaniyadii oo ah in la ilaashado qarannimada madax banaanida umadeed in la ilaashado waxa lagu ilaashan karaa marka oo mabaadiidaas kamid ahaa midnimo marka laga tago qabiil ummadda Soomaaliyeed ay isugu timaado inay yeelatay qarankaasna ummadda oo dhan ay ka dhaxayso waa laga soo guuray qabiilkii iyo qoqobkii waxa loo guuray midnimo tan saddexaad waxay ahayd maamul wanaag ama dawlad wanaag oo siinaysa shacabka Soomaaliyeed kalsooni bacdama amaanadoodii iyo hantidoodii loo ilaalinayo oo cadaalad loogu ilaalinayo aan ummadda loogu kala aaxanaynin wax alla wixii yar la isu gaarsiinayo in wax lagu qabto sida hadda aad arkaysaan
General Odowa iyo ciidamadiisa ay dib u soo nooleeyeen ama u dhiseen xaruntii wasaaradda gaashaandhigga aasaaskaas yahayd wixii lagu dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hadday tahay ciidan dhul hadday tahay ciidan bad iyo hadday tahay ciidanka cirka sidaad ogtihiin saddexdaas qaybood waxay ka galeen kaalin aad iyo aad u sarreysa caalamka iyo Afrikaba oo ay ahaayeen ciidan xoog leh oo ka tilmaaman oo la xurmeeyo oo qayb ka noqday xornimadoonkii Afrika ee lagu xoreynay ee gumaysiga lagu xoreynay taas macnaheedu waxay tahay in haddii mabaadi aysan jirin waxa ugu horeeya qofka uu baahan yahay haddii ummad in la hogaamiyo loo baahan yahay inay tahay mabaadi dawlad markaan ka hadlayno qaranna waxa weeye waa wadaniyadda weeye taas weeye tan shacabka qabkooda iyo dareenkooda kor u qaadi kara siin kara xushmad iyo karaamo siin kara markii maamulkooda ama hogaankooda uu leeyahay hadaf wadaniyad ama patriotism uu leeyahay qaranka in la ilaaliyo siyaasadda haddii lagu ilaalinayo iyo haddii la difaacayo midnimada ummadda in la adkeenayo ama midnimada ciidanka la adkeenayo oon ciidanka loo kala saaraynin heeb iyo maamul wanaag dowlad wanaag oo lala dagaalamayo musuqmaasuqa oo cadaaladda la hormarinayo taas waxay u dhashay marka in ciidankii tirada yaraa uu markii dambe gaaray intaysan dowladda burburin 120,000 oo marxalado badan iyo dagaalo badan soo maray markii ciidanka daryeelkoodii iyo xuquuqdoodii loo dhammaystiro oo mushaharaadkoodii iyo daryeelkoodii caafimaad meel loo saaro markii tababarkay u baahan yihiin kor loo qaado tayadooda markii ay loo hibeeyo la siiyo qalabkoodii ay u baahnaayeen oo nooc walba ah sidaad ogtihiin ciidamada cirka ee Soomaaliyeed waxay ka galeen kaalin aad iyo aad u sarreysa ilaa waxay gaareen inay gaaraan 3,000 staafka u shaqeeya hadday yihiin pilots wadayaal diyaaradaha hadday yihiin makaaniga hadday yihiin kuwa raadaarka ka shaqeeya iyo hadday yihiin kuwa maamulka iyo logistics wadan Afrikaan oo ciidankiisa 3,000 gaaraya cirka waa farakutiris ciidanka dhulka waxa u dhameystirnaa iyaguna qalabkoodii oo hadday noqoto dabaabadihii madaafiicdii goobta iyo qalab kasta oo ay u baahnaayeen si ay u difaacaan xuduudaha dalka uu leeyahay hadday tahay bad hadday tahay cir iyo hadday tahay dhulba dhismahaas ciidanka oo runtii ummadda Soomaaliyeed siiyay magac wanaagsan adduunka ku siiyay iyo sharaf aasaaskiisu wuxuu ahaa Allah ha naxariistee General Daawud Cabdulla Xirsi iyo mabaadiidii wadaniyadda ahayd 30 sano kadib markii aan mabaadiidii ka leexanay oo aan u gudubnay wax laga soo tagay oo SYL ay ka adkaatay oo leeyahay qabiil ama wuxuu gumaysigu isticmaali jiray qayb iyo xukun oo cid walba ama qof walba uu aaday meeshii heebtiisa ay joogtay oo meel walba Soomaaliya ahna isbaara la dhigtay oo cid walba meesheeda xiratay waxa meeshaas runtii ka dhacay qabjab iyo qaranjab meesha ugu hooseysa oo haddana aan ugu hooseynay Afrika inteeda kale iyo adduunkaba oo aan noqonay wax lagu qoslo oo lala yaabo maxaa yeelay mabaadiidii fiicneed ee wadaniyadda ahayd iyo xamaasadeedii waa ka tagnay waxaan aadnay wax aanan qaranka compatible u ahayn oo aan qaran dhisayn oo qabiila oo macnihiisu in wax lagu dumiyo oo kaliya qabiilku wuxuu fiican yahay kaliya markaysan dawlad jirin ama markuusan qaran jirin maxaa yeelay awooyaasheen yaa ku noolaa oo ku dhaqmay 10,000 sano xeer iyo nidaam yeelahaayeen laakiin xeerkaas iyo nidaamkaas xeer adduunka casriga la jaan qaadi kara ma aha haddaan qaran noqonnay qabiil dawladaha shisheeye
kuma aadi karo mana face gareyn karo laakiin waxaan kula tartami karnaa caalamka intiisa kale annagoo midaysan oo dawlad adag ah oo mabaadiidaas aan sheegay ku dhisan soddonkii sano oo ugu dambeeyey isaga sheekayn mayno wixiina soo maray waa wax u baahan bilo iyo sanado in laga sheekeeyo wixii dhacay insha allah markay xaaladdu degtana dee waa laga sheekayn doonaa oo waxay noo noqon doontaa taariikh aan wax ka baranno foolxumadii iyo dhibkii dhacay uu qabiilka noo geystay haddaba waxaa noo soo haray oo hadda hor yaalla waxa la yidhaahdo political instability waxa la yidhaahdo oo qayb ka ah wixii ka soo haray qabiilka iyo qabyaaladii iyo qaybintii iyo argagixiso oo adduunka maxaanku idhaahdaa nooga yimid oo aysan ahayn wax soomaaliya ku abuurmay oo aan isla naqaano oo ay qayb ka tahay kooxda la yidhahda alqaacida oo ujeedkeedu yahay in soomaaliya aysan degin in dawlad adag aysan u dhismin in shacabkeedu aysan horumar gaarin adduunkana aysan waxba la qabsan macnaheedu waxa weeye labadaas cudur waxay nagu soo galeen political instability ama xasilooni la'aan siyaasadeed iyo qoladan nabaddiidka ah waxay nagu soo galeen haddaan midaysan nahay haddaan waddaniyiin nahay hadday daacad naga tahay inaan dalkeena difaacanno oo aan jeclaanno nomaysan imaadeen meelo kale aadi lahaayeen waxay noogu yimaadeen waxay arkeen inaan haysanno mabaadii khaldan oo qabiil la yidhaahdo oo ummadda kala qaybiya waxay u arkeen inay ku dhex noolaan karaan marka oo ay ka dhex shaqaysan karaan oo ay horumar dalkan ugu diidi karaan fursaddaasna runtii annagaa siinay maxaa yeelay waxaan diidnay inaan patriotic noqonno inaan waddaniyiin noqonno ayaan diidnay haddaba markii la i doortay waxaan ku imid nidaam la yidhaahdo isbeddel doon ayaan ku imid nidaamkii isbeddel doonka ah ma ahayn inaan shaksi beddelo ama qof beddelo isbeddel doonku wuxuu ahaa inaan dib aan u milicsanno wixii aabbayaasheen ay ku shaqeeyeen oo u shaqeeyey ay ku keeneen xorriyad ay ku keeneen ciidan xoog leh taas oo ah inaan dib ugu noqdo ama aan kala doorto wixii soddonkii sano na dhibaateeyey oo qabiil ahaa oo siyaasaddeena qayb ka ah iyo inaan qaato mabaadiida ah waddaniyadda patriotismka isbeddelkaygu ma ahayn shaksi beddel laakiin wuxuu ahaa nidaam beddel nidaamkaas oo ah inaan bilaawno waddaniyadda oo si dhab ah oo si daacada ay naga tahay oo aan dib ugu noqonno mabaadiidaas ama xamaasaddaas waddaniyadeed ee dadkii naga horreeyey ay noo aasaaseen oo foundation ay nooga dhigeen oo ah inaan sovereigntigeena ilaashanno oo aan ku ilaashanno si siyaasadeed iyo si ciidanba labadaba haddii nalagu soo duulo haddii si siyaasadeed naloo weerarana aan si siyaasadeed aan ugu wajahno waa kow sidaad og tihiin marxaladahan soo marnay 5 sano haddii ugu dambaysay waxaan ka bilaabay waxyaabihii ugu darnaa oo na haystay waxay ahaayeen fargelin shisheeye bacdama aan kala qaybsanayn oo dadkeennu ay qabiil u qaybsanaayeen oo qaarkeen ay yidhaahdeen waa go'nay intii kalena ay kala irdhoobeen dee dowladaha danaha kale u racan soomaaliya ma joojinayaan markaas inay ka faa'iidaystaan xaaladdaas oo ah inay ku fargeliyaan xaaladdaas adigu aad liidato inay ku fargeliyaan in aan kulli wada maro aan weydiisto inaan noqonno deris wanaag inaan lahaanno saaxiibba noqonno faragelinta ay naga joojiyaan oo aynan mar dambe u dulqaadan doonin innaba ha yaratee wax yaroo faragelina saad og tihiin waxaan ka bilaabay kenya waxaan ku xujiyey etoobiya jabuuti inta deriska nala ah oo kulligoodba xaqiiqatan deris aan nahay
loona baahan yahay inaan wada noolaanno oo deris wanaag ku wada noolaanno iyo iskaashi iyo wax wada qabsi wixii hore u jiray iyo caadadii aan naqaanayna laga tanaasulo oo la is ixtiraamo oo si siman loo wada shaqaysto lisuna caawiyo waxaad ogtihiin in Soomaalidu markay u socdaan Kenya meel wajeer la yiraahdo in lagu hayn jiray 6 saacadood safarka Muqdisho ilaa Kenya ay u socon jireen 7 saacadood markay ugu yar tahay kabaha laga siibay wajeer haddana kabaha looga siibo dadka meesha la yiraahdo Nairobi arintaas complain yaan ka jeediyay bacdama iyaga muwaadiniintooda ama diyaaradooduba ay toos u yimaadaan saas darteedna in la joojiyo socdaalkaas qaldan oo la mid ka ah qofka halka ka taga oo Yurub aad oo kale waxa ku xigay soo celinta hawada Soomaaliyeed oo laga kontroolayo oo laga maamulayay magaalada Nairobi muddo 26 sano ah oo sanadba sanad ay u dhiibayeen bacdama problemkan haysto ay tahay political instability ayna uga faa'iideysan jireen waxaan ku khasabnay inay dalka keenaan oo annaga iskale annaga aan maamulno xaqiiqatan maanta waxaan haysanaa qalab ka fiican dawladaha dariska ay haystaan waxa intaas dheer dawladaha dariska markay xuduudahooda ay damcaan inay kala dhistaan oo ay silig ama darbi ku wareejiyaan waxa la saaraa guddi border commission la yiraahdo dawladda Kenya waxay bilowday inay samayso xuduud shub ah ama dhagax ah annagoo wada tashan oo ka heshiinin arintaasna waxa weeye wax sovereignty-geena taabanaya weeye maxaa yeelay ma naqaano xariiqda la dhigaayo soohinta la dhigaayo ma naqaano oo laga dhisaayo waxa intaas ku xigtay aad ogtihiin oo muddo dheer qaadatay iyadana qayb ka ah sovereignty-ga Soomaaliyeed oo u baahan in siyaasad lagu xaliyo u baahnayd in siyaasad lagu xaliyo waxay ahayd murankii badda annagu aan gelinay oo aan la galnay Kenya oo ay Kenya aamintay inaan baddi siinay aan u sii deynay oo ay meel walba ku qortay memorandum of understanding loo saxiixay taasoo runtii culays badan aniga khaasatan igu ahayd oo pressure aanan sahal ahayn oo hadday tahay mid siyaasadeed oo dee lagu handadayo oo lagu sheegayo inaad tabar yar tahay oo leverage badan laga leeyahay oo lagu dhibaateyn karo si aan dib uga noqdo badda mid dhaqaale iyada naftigeeda iyo mid siyaasadeed basaan sheegay oo xitaa in meelo la soo marsiiyay in election xitaa lagala shaqeynayo si aan u soo noqdo in return aan ku bedelayo baddaas inaan dib u soo celiyo handadaad waa idin sheegay oo xitaa la gaarsiiyey in toos fargelin qaawan Kenya nagu samayso hadday tahay cirka iyo hadday tahay dhulkaba oo aan meel kasta ka dacweynay ilaa markii dambe ay nagu abaabushay jabhad ilaa 800 gaaraysa xuduudka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya iyadana aan si wanaagsan aan ku soo afjarnay guulaha ka gaarto ciidanka xoogga Soomaaliyeed intaasoo idin waxay ahayd wax siyaasad u baahnayd oo lagu ilaalinayo qarannimada iyo madax banaanida ummadda Soomaaliyeed waxaa kaloo intaas dheer haddii dawlado aad saaxiibo wada tihiin ay murmaan ama ay dagaalaan bacdama aan jilicsannahay bacdama aan muddo kala qaybsanayn bacdama leverage badan uu jiro oo nalaga soo geli karo oo aan jilicsannahay inaan nala ogolayn inaan qaadano dhexdhexaad taasi waa diidnay waana qayb ka mid ah waddaniyadda iyada naftigeeda maxaa yeelay haddii dan shakhsi ay tahay haddee waxa ugu fiican oo qofka shakhsiga uga faa'iidaysan karo laakiin qofka mas'uulka ah hadduu mabda'aas uu leeyahay patriotismka in uu fiiriyo danta dalkiisa iyo mustaqbalka dalka maxaa yeelay markii laba dal isqabtaan
ay ku khasbaan mid inaad raacdo oo aysan khasab inaad raacdo oo waliba xiriirka u gooyso oo aad samayso waxa ka dhaxlay dhibkaas dadka ka dambeeya ma aha wax shakhsi ku xiran ma aha waa laga yaabaa shakhsiga hadduu u arko inuu ka faa'iideysan karo uu ka faa'iideysto laakiin waa dhib dhaxal reeb ah oo dadka ka dambeeya u yaala maxaa yeelay waxaad gashay dagaal uusan dadkaaga lahayn yaad gashay waxaa idiin soo haray taasi waxay tan siyaasadda tan difaac intii oo kale aan sameeyey wax cusub maaha wax cusub oo aan alifnay oo aan invention ku sameynay maaha intii hore oo dadkii hore sameeyeen baan buugta ka jajafnay oo aan dib u soo nooleyn oo ahayd in ciidanka madaxa laga dhiso maskaxda laga dhiso waxaa looga dhisayaa markaas madaxa ama maskaxda looga dhisayaa wadaniyadda in lagu abuuro maxaa yeelay waa in ciidankani uu yaqaano waxa uu dhimanayo inuu yaqaano wuu yaqaanaa waa dhaqankiisa qabiil inuu dhinto waa yaqaanaa laakiin in la baro askariga waxa uu dhimanayo inay tahay wadaniyad iyo wadankiisa wax ka weyn waxa uu yaqaan inay tahay in la siiyo xuquuqdiisa loo dhammaystiro xuquuqdiisa si xuquuqdiisa loogu dhammaystirana waa in la diiwaan geliyo saad og tihiin sanad iyo bar kadib yaan meeshaan imid oo aan joogay usbuucyo aan joogay si aan u baaro waxyaabaha naga hadlaysan maxaa yeelay askartii aan mushaaraadka siinayna ma gaarayso tayadii ciidankii ma fiicna isku xirnaanshihii saraakiishii iyo dablaydiina ma fiicna waxaan gartay marka inaan meeshaan u soo dego oo aan baaro cilladda meeshay ka jirto cilladda waxaan ogaaday in uusan jirinba hal gal file oo ciidanka leeyahay in ciidankaas hadduu tago meel laga raadiyo aan la aqoon inta isla joogto keliya istaqaana meeshaas way meesha uu ka bilowday in aan samayno biometric iyo diiwaangelin meeshaan ka bilaabno meeshaas wey waad ogtihiin markaan bilownayna dhibka iyo wixii naga qabsaday iyo ciidankii runtii mutiniga sameeyey oo gadooday oo qaarkood garay lahaayeen oo biometricgii aysan gaarin iyo fingerprintingkii qaarna ay diidanaayeen systemkan cusub marka ciidanka xuquuqdiisa la siiyo oo kan la siinayo la yaqaano oo diiwaan ku jiro waxa weeye ciidanka midnimadiisii yaa ku xigta marka tababarka la siinayo ciidanku inuu yahay ciidan Soomaaliya oo dhan ka kooban oo aanan ahayn hal degaan maxaa yeelay waxa la difaacayo waa qaran siday ahaan jirto weligeedba oo wax cusub oo annagu aan sameynayno ma aha markaas yaa waxa ay timid tayadii ciidanka waqti badan yaan u baahannahay oo waqti yaa loo baahan yahay marka ciidan la dhisaayo oo ciidanka idin sheegayo oo 60kii la bilaabay ilaa markii ugu dambeysay ee dawladda burburaysay oo uu gaaray 120,000 intaas yaa la dhisay waa sax marna wadaniyada xoog badneed patriotismka xoog badnaa marna qabiilka xoog badnaa markii qabiilku xoog batayna de ciidanka tayadiisii waa xumaatay oo ciidanku wuxuu aaday qabiil marka tababar inaan siino ciidanka leh tayo leh si meeshaas ay u soo baxaan ciidan tayo wanaagsan tan ugu muhiimsan waxay ahayd xakamaynta hubka sidaad og tihiin waa meesha ay ka imaanayso maamulka oo aan horey kugu sheegay ciidanku waa inuu qadiyad aaminsan yahay uu difaacayo oo wadaniyadda xamaasadeeda ay siinayso oo dalka waa inuu ciidanku midaysan yahay tan saddexaadna waa maamulka meeshaas way meesha ay ka imaanayso xakamaynta hubka in maamul wanaagsan uu hayo hubka iyo rasaasta dalku leeyahay si aysan u gelin gacanta cadawga ama si aysan u gelin gacanta shacabka aysan u gelin taasna runtii waxaan u xakameynay si aan caadi ahayn oo alxamdulillaah intii annagu aan nimid wixii aan aruurinay sidooda noogu yaalaan
awaamirtana ciidanka taliyaha ugu horeeyo iyo taliyaashii ku horeeyay iyo dadka haya oo maxaan ku raahdaa haya maxaa la yidhaahdaa hubka haya iyaguna ay xakameeyeen oo aysan marnaba ku tagrifalin waxa dadka ka dhexeeya ciidanka ka dhexeeya waxaa hadda uu ka hadlay taliyaha inaan u gudubnay amisom aan ka gudubnay oo aan u gudubnay admis aan u gudubnay aan ku jirnay muddo waxa la yidhahdo Somali Transition Plan oo aan qorsheynaynay sida aan ciidankeena aan u dhisi lahayn annagoo dagaal ku jirna inkastoo aysan sahal ahayn ciidanka dhismihiisana in la wado dagaalna lagu jiro aysan sahal ahayn haddana waxaan ka shaqeynay inaan qorsheenno sidii aan uga bixi lahayn waxa la yidhahdo chapter 7 oo annagu aan iskugu filnaan lahayn macnaheedu inay tahay walaalaheen African Union oo noo soo gurmaday inaan u mahad celinno waxay noo daadiyeen dhiig badan sacrifice badan iyo noo sameeyeen waa u dhaawacmeen inay difaacaan qarannimadeenna iyo dowladnimadeenna aad iyo aadna waa ugu mahadsan yihiin taariikhdaana qoraysa laakiin weligood ma joogi karaan meesha waa inay lahaato waqtigaas weeye waxa marka aan hadda ka shaqeynay oo aan dib u cusboonaysiinay mandatekoodii oo ah annaga 2024 hadduu ilaah yiraahdo dowladda Soomaaliyeed ay iyadu hanato amnigeeda ciidankeedana iyadu ay u gacan banaato taasna waxayna siinaysaa iyada naftigeeda cunaqabateenka aan ku jirno oo muddo 30 sano ah ma lagu hayo cunaqabateen xaqiiqatan marar badan ayaan UN-ka aan aad uga doodnay aan uga hadalnay in laga qaado cunaqabateenta maxaa yeelay haddee cadowga aan la dagaalamayno oo alqaacidada ah cunaqabateen ma saarno dalkeena wuxuu leeyahay 3300 oo dhererkiisu yahay xeeb ayuu leeyahay meeshii rabaan wax kala soo degi karaan annaga se waxaana saaran gacmaha naga xiran oo ma awoodno xitaa haddii aan dhaqaale helno in aan soo iibsanno hubkaan u baahannahay si aan cadowga uga gacan sarreyno waxaana saaran cunaqabateen oo hubabka qaar oo weliba kuwa culus oo loo baahan yahay inaan uga adkaano fududeyn karta ama dadejin karta inaan ka adkaano shabaabka ay uu naga saareen cunaqabateen meeshaas markaan joogno dalkeenu wuxuu noqonayaa dal normal ah marka dad badan waxaa laga yaabaa hadda inay u arkaan dalkeenu inuu yahay dal normal ah maaha dal normal ah waxaad gaaraysaa markii adigu gacan buuxda aad sovereignty-ga ku difaacan karto oo ciidankaaga aad leedahay oo aad xuquuqdiisa adigu aad siinayso oo qalabkiisa adigu aad u iibinayso shacabkaaguna uu ku taageersan yahay ugu dambeyn waxaan rabaa tacsiin inaan u diro faamilada qoysaska iyo ciidamada qalabka sida iyo annagoo dhanba dadkii halyeeyada ahaa geesiyiinta ahaa oo nooga geeriyooday oo nooga shahiiday dagaaladii aan kula jirnay xagjirka argagixisada alqaacidada aan kula jirnay u dhintay naftooda u bixiyey ilaahay waxaan ka baryaynaa naxariistiisii iyo jannadiisii inuu ilaahay siiyo ma iloobi doonno magacooda wuxuu noogu qormi doonaa qalbiga keliya ma ahayn baal dahaba ayuu dalkan taariikhdiisa uga qormi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo kuwa u dhaawacmayna waxaan leeyahay dalkiinna siday ahayd yaad ugu dhaawacanteen oo waajibaadkiina ahaa ilaahay hadduu idinka kiciyana alxamdulilah dowlad kasta oo timaadana inay idin siiso daryeelkiina iyo noloshiina iyo caafimaadkiina walaalayaal waxaan kala dooranaynaa haddaan rabno inaan dhisno ciidan xoog leh oo ilaan ciidanka shakhsi ma laha ciidanku siyaasad ma aha ciidanka dalka iskale qaranka iskale marka la arko ciidankan sida uu yahay iyo juhdiga la geliyey macnaheedu ma aha qof inuu leeyahay ciidankan waxaa iskale ummadda Soomaaliyeed waxaana loo carbiyey oo loo diyaariyey oo loo tayeeyey oo loo tababaray inay difaacaan qarankooda difaacaan haddii aan doonayno marka taariikhdeenii hore inaan milicsano
oo taliyaashii hore qaar ay halkan ka joogaan markhaati u ah waxaan sheegayo waxaa loo baahan yahay in ciidankeenna mabaadi'diisa ciidankeenna principlekiisa ciidankeenna afkaartiisu inay tahay waddaniyad dowladdeenna afkaarteedu inay tahay waddaniyad anugu waxaan idin sheegayaa waa kala doorta waqti horaana kala doorta qabiil iyo dal iyo qaran waa horaan kala doorta waxaan doortay qarankaan doortay waxaan ugu shaqaynayaa si waddaniyad ay ku jirtaan ugu shaqaynaya patriotism ay ku jirtaan ugu shaqaynaya qofkii caqliga raba qabiil inuu dowlad kula dhex joogo ama ciidan kula dhex joogo ogaada meelna iga qora waa qof xanuunsan ama waa qof hadda dhashay maxaa yeelay waa soo aragnay ciidan iyo dal ku dhisan waddaniyad iyo mabaadii guud waa soo aragnay mabaadiidii waddaniyadda laga tegayna waa soo aragnay oo aan qabiil ka aadnay burburkeedii iyo dhibkeedii iyo halaageedii iyo qaxeedii waa soo aragnay oo ay gaarsiisay saraakiil badan oo pilots ahaa inay baadiye iska aadaan xoolaha iska raacaan meeshii awoogood ay uga soo tageen qarniyo hore ay dib ugu noqdaan ama ay suuqyada ku iibiyaan looska iyo qaraha maxaa yeelay sharafku waxay ku lahaayeen shalay waddaniyadii sharaf ku lahaayeen laakiin markii qabiil ay aaday dee waxaa soo gelaysaa qof kale isbaaradiis marka waa inaa aadaadna isbaaradaada meesha reerkaagu joogina aadda wey reerkaagana wuxuu ku siin karo keliya waa wixii 70 sano 80 sano ay ku noolaayeen oo aan horumar lahayn hadalkaygu wuxuu ku kooban yahay walaalayaal haddaan doonayno horumar haddaan doonayno inaan la tartanno caalamka haddaan doonayno shacab caafimaad qaba aan qaadanno mabaadiida waddaniyadda ah oo patriotismka ah aan ka tagno wax alla wixii dib noo dhigaya ugu horeeya qabiilka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu